waxa ay ii soo dirtay fariin iyadoo leh assalaamu calaykum. waxaan dhahay wacalaykum assalaam. waxa ay weydiisay misbaran karnaa. markaa ayaan ku dhahay haa magacaygu waa hebel ee adiguna magaca. xoogoo yar ayay aamustay kadibna waxay ii soo qortay anigu magacaygu waxaad aragtaa habeenkii mana arkaysid maalinkii. bil walbo maalmo kooban ayaa la arkaa kadibna wuxuu isku bedelaa magaca qof kale. magacaygu waxaa adeegsado abwaanada tixixoodii ogama maarmaan, qoraayaasha buugaagtoodii kama maarmaan, mucaashaqiintana asaabahoodii ogama maarmaan, musaafiriinta safarkoodii habeenkii ogama maarmaan. kuwa cidlada hayso waxa ay ka dhigtaan habeen walba wehel. magacaygu waxfiyaa samada waana astaanta u taagan quruxda dadka eega aad ayay ugu farxaan eegistiisii. waana magac dunida looga maarmin. waxaan ku dhahay macquul ma tahay wada hadalkeenii inaad mar kale noogu soo celiso oo aan kow ka soo bilowno. waxa ay si la yaab laha u tiri laakiin sababta ma ii sheegi kartaa. waxaan ku dhahay waxaan aad iyo aad uga helay qaabka aad u tilmaamaysa magacaagii. waxaan rabaa inaad mar kale iigu soo celiso si aan mar labaad ugu raaxaysto. ayadoo faraxsan ayay igu tiri hagaag bal haddaba aan bilaabno. kadib waxay dib iigu soo qortay assalaamu calaykum. waxaan u qoray wacalaykum assalaam. waxa ayna mar kale soo tiray ma isbaran karnaa. waxaan ugu jawaabay maya kadibna waxaan saaray block ileen hadalkeedaan ku daalayay. haddaba xalimooyinka noocan oo kale ah ma ku aragtaa baraha bulshada?